السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت بدن سو dhawaada mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale walaalka saaxiibkana Ismaano soo janaka soo pro ma joogo fiican yahay alxamdulillah qorax fiican ay jirto taa idin sheeg maalmahan waa shaqada kale waa iska yartahay marka waxaan is dhahay inta meesha aad fadhin lahayd oo qolka aad isku wada jiri lahaydeen xogaa awada macaan soo qaata kaligeena mihi waxaan soo soconaa hey Mr Ibrahim السلام عليكم أصحابتا مالي وناكسنا إن سلامينا ibrahim ayaan bariyahan waan kala maqnay runtii waa aad iyo aad loo kala mashquulay marka sidoo kale maanta adiga laba muuqaal aad duubeen muuqaalkan hadda aad daawanaysaan iyo mid kale isna sidoo kale waxaad ka daawan doontaan channelka Ibrahim Prince Imi Entertainment hadii oo ilaa iyo xilligan la sameeyay korkaan aad soo saara hadii kalena description koos insha Allah ama qaab comment aan idin kugu bin kareynaya okay gasan ugu balanay barnaamijkaas insha Allah hey waan soo laabanay gurigan ku soo laabanay yani waxba asuukay qaban waayay sida aan rabay marka muuqaalka inta ku dhameystirnayna muuqaalkan maanta waxa uu ku saabsan yahay marka ka waran hadii aadan dareemaynin wax xanuun ah macnaha jug walba ku gaarto hadii aad kufto dhacdo ma aragtay lagu qalo gacan ku jabto ama aad si noqoto daqranto intu baadii aadan xanuun dareemeyn ka waran aad iska soconayso ama hadii lagu daaweeyo on adiga waad jafanaysaa oo soconaysaa adiga xanuun dhama dareemaysid wax laga yaabaa in si kama gudahooda aad isdhaahdo ay sidaas way fiicnaan lahayd laakiin maya markii aan xanuunsano waan danqanaa mararka qaar xitaa waan la ooynaa ilaahan barinaa laakiin xanuunkaba sidoo kale waxa uu ka mid yahay nimcooyinku ilaahayna siiya alxamdulillah waayo xanuunku waa digniin haddii aanan xanuun dareemin ma ogaan karno goorta aan xanuunsanay iyo goorta aan caafimaad qabno ma ogaan karno meesha aan ku xanuunsanayno ilaa iyo inta ay nala tagayso yacni ma aragtay xanuunkaas uu nala tagaayo tusaale ahaan oo kale haddii adiga aad dab ku istaagto haddii aad xanuun dareemayso isla markii waad ka boodaysaa in aysan kugu sii fogaanin darteeda waayo waxaad heshay digniin waad booday isla markiiba haddii laakiin aadan waxba dareemeyn waxaa laga yaabaa kursi oo koronta inaad isaga fariisato xaaladaasi ah in anaga aan xanuun dareeno dadka oo dhan ma wada haystaan waxaa jiro dad uu ilaahay abuuray oo awoodiisa ay ku dhacday si aan ugu cibr qaadano maaragtay markaasi aan ku aragno waxaan anaga aan isaga qaadanay garanti ahaan inaysan ahayn wax qof waliba markaasi uu haysto internetka markii aan ka baaray oo aan raadshay waxaan helay adiga ilaa iyo 3 qofood 3 qof aan helay waa dumar waa 2 gabdhood oo yar yar iyo qof oo maaragtay da intuba dib ayuu maaragtay markaasi ku haya oo aan la qiyaasi karin xaaladan ay ku sugan yihiin balse dhibkooda ayaa kala badan oo waxa dhibka ugu badan markaasi xanuunkan uu gaarsiiyay Gabi sida ay dhaqaatiirtu sheegeen gabadhani waxaa la yiri qofka marka uu taabto maqaarkiisa ama meel isaga kamid ah marka ay taabato meel yani ama af leh ama dab ama wax qabo yani dareemihii dareemayay oo signal ahaantana siinayay maskaxda u sheegayay waxaasi sida markaasi ay qofka dareensiinayaan ama inay dhaawici karaan ama inay qaboojin karaan ama inay gubi karaan ayaa waxaa la yiri
ka maqan gabadhan. Marka gabadhan ayaa xanuunkan waxa uu u horseeday ama uu ku sameeyay inay u muuqato sawirkan aad arkaysaan. Okay, waxaan arkaynaa hadda gabadhani inay tahay bilaa ilko ama aysan ilka lahayn sida qof oo waayeel ah oo kale. balse waxa la sheegay oo waalidiinteedu ay sheegeen ilkaheeda inay ku dhamaadeen in ayadii ay ruugtay. mar walba waxa la yiri ilkaheeda ayay ruugaysay iyo macala carabkeeda afkeeda waxa mar walba la heli jiray oo dhiig leh, sababtoo ah ma dareemayso markay ruugayso oo xanuunku ma haayo. kaliya ilkaha ma ahana waxaba ka sii daran, waxa la yiri mar walba indhaha ayay faqaysay oo indhaheeda hadda xaalad markaasi ay ku jiraan waxa la yiri yani sharci ahaan waa indhool, taas oo markaasi ka dhigan in yani in ka badan 20 feet aysan wax ka arki karin. macnaha ayadoo yar marka indhihii markii ay sidaas ka noqotay oo meel walba markii ay gasho yani markay madax meel ku dhufsato, markay dakhranto, markay jabto, intaba aan la dareemeyn. haddana indhihii markay sidaas ay yani mar walba oo habeenkii marka la seexsho oo kale indhaheeda ay ugu mashquulayso, indhihii ay yani faraha gelinayso, barnaanka ay usoo saarayso, indhihii ay cidiyeysanayso, sankii iska cidiyeynayso oo yani ayadoo subaxii wada dhiig leh un loo soo kacay. sababtoo ah waalidiinta xitaa dhib ayay ku ahayd markii hore inay ogaadaan in ilmahooda uusan xanuun dareemeyn. marka gabadha sidaas ayay kusoo weynaatay oo kusoo kortay, si kastoo ay ahaataba yani adiga sidaas ayayna maaragtay markaasi waalidiinteedu ay ku ogaadeen xaaladeeda, ay kula tacaaleen oo xitaa iskuul ay ku geeyeen. markay soo weynaatay gabadhii oo ay aragtay in ilka aysan lahayn, in yani ay ka duwan tahay dadka kale, markii ay aragtay kulay markaasi way soo weynaatay, waa loo sheegi karaa waxyaabaha dhaawacay iyo waxyaabaha kale oo markii ay yarayd way ka يعني fursad fiicneed markaasi, laakiin waxay ahayd mar ay sheekadu markaasi ay soo raagtay waxyeelada ugu badanna ayadoo yara ay soo gaarsiisay. yani maadaama markaasi reerkoodan aysan heli karin in ilka loo sameeyo, afkeedii loo buuxiyo oo ilka artificial ahayn oo caadi ah in loo sameeyo oo barnaamijkaas loo sameeyo markii la rabeena insurance-geeda ama caymiskii ay ku jirtay caafimaadka ayaa waxa uu yiri yani tan waa wax ka baxsan xaalad caadi ah, yani waa maaragtay markaasi kamana bixin karno. adiga la markii dambe markaasi loo sameeyay lacag ururin oo looga dhigay markaasi in adiga ilkaheedii dib loogu sameeyo. sidoo kale xitaa gabadha yani waa ay qalin jabisay oo waalidkeedii ayaa aad iyo aad markaasi ugu dadaalay. haddana saasay tahay in weli caqabadeedii iyo wixii soo maray iyo xaaladda markaasi sida ay ku hayso weli kama aysan marmin. gabadhan ayaa mar hooyadeeda oo sheekeynaysa waxay tiri yani hadda waxa ay ugu jeceshahay ama riyadeeda ugu horeysa hadda waxay tahay in tufaax ay qaniinto. ka waran يعني waayo xanuunka inaysan dareemeyn waa waxay aragtay ay la nooshahay, way aqbashay, balse ilaa iyo yaraanteeda wixii isku soo sameynaysay oo saameeyay weynaanteeda ayaa ma aragtay markaas sidee ka tan badan oo ay qaadi kari weyday. sida aan ugu qaadano in ma aragtay garanti ahaan loo siiyay anaga, maadaama yani qof waliba inta ugu badan qof waliba uu haysto, laakiin waxa soo qofkii aanan haysanin markii aad aragto markaasi farqi ama duwanaansho aad iyo aad u badan oo waliba dhibaato aan markaasi ku hayo noloshiisa. muuqaalkani ka hor ma isweydiisay weliga, ma isdhaxday ama ma maqashay inay jiri karto xaalad noocaani ah oo in qof uu jiro adduunka oo aanan xanuun dareemeyn. xanuun dareemid la'aantaasoo weliba haddana markaasi xanuun kale kusii noqonayso isaga iyo familkiisa iyo inta markaasi u dhowba. dhammaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan aad daawateen. insha allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad ahaada.